Waxaa maanta la ciyaaray kulankii labaad ee tartanka nabadda waxaana wada ciyaaray kooxaha Dekedda iyo sidoo kale Hagen. Ciyaartan ayaa ahayd ciyaar aad u wanaagsan, labada kooxood ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad loo riyaaqay, waxaana gacan sareysay kooxda kubadda kolayga wiilasha Hagen, iyadoona ciyaartaasi ahayd mid aad loo jecleystay. Labada kooxood ee soo bandhigay taageerayaasha joogay ayaana ku maqsuuday kulankan ay daawadeen, iyagoona sheegeen in kulankan ahaa kulankii ugu fiicnaa ee ciyaarta ayaa guul weyn oo markaasi gaartay naadiga Hagen 53 iyo sidoo kale 60 ayay ku dhamaatay ciyaarta, waxaana sidaasi guusha ay ku raacday kooxda Hagen. Tartankan ayaa shalay bilowday waxaana lagu daafuray kooxaha Gift iyo Horseed. Guusha waxaa gaaray kooxda Gift Star oo markaasi ka guuleysatay wiilasha kooxda Horseed oo tartankan ciyaarayay, waxaana hadda finaalka u soo baxay kooxda Gift iyo Hagen, waxaana tartanka ka haray kooxaha Horseed iyo Dekedaha oo laga kala badiyay labada ciyaar ay soo kala ciyaareen. Maalinta Britana waxay ku beegan tahay maalinta ciyaaraha ee lagu asteeyay in tahay maalinta nabadda adduunka oo looga dabaaldegayo. Tartankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya iyo sidoo kale xiriirka kubadda kolayga. Afartaas naadi ayaana loo qabtay. Dhanka kale, xiriirka tenniska dheer ayaa maanta waxa ay bilaabeen tababarka ee la isku diyaarinayo horyaalka sidoo kale ee ciyaaraha laga qaybgali doono ee tartamada kala duwan. Maanta tababarka waxaa markaasi ka soo qayb galay dhammaan ciyaartoyda, iyagoona horkacayay xiriirka kubadda kolayga, gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga Gudoomiye Saacid iyo sidoo kale Macalin Abuukar iyo Macalin Cabdiraxmaan Gentleman oo ay markaasi tababarka maanta bixinayay, waxaana ka faa'iideystay dhammaan ciyaartoyda oo sanadkan diyaargarow xoogan ee ugu jira, iyagoo daneynaya in markaasi bandhig wanaagsan ay kasoo sameeyaan tartamada ee caalamiga. Tababarkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo, kuwaasoo la isku diyaarin doono ciyaaraha kala duwan, waxaana tababarkan bixinaya Macalin Abuukar, gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga iyo sidoo kale Macalin Cabdiraxmaan Gentleman, waxaana tababarka lagu bixiyaa garoonka kubadda cagta ee degmada Shibis, iyadoona ay ka faa'iideysteen dhammaan naadiyada kooxaha oo sanadkan dardar xoogan ay gali doonaan, waxaana dhowaan uu bilaaban doonaa horyaalka 8aad ee tartanka ee kala duwan ee xiriirka tenniska ay qabtaan, iyagoona soo bandhigi doona ciyaaro kala duwan ciyaartoyda ka qaybgalaya tartankani.